assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada khiyaarta, waa mar kale iyo barnaamijyadeeni taxanaha. Barnaamijkeena maanta waxaa inoo saaran sheeko. Nin iyo xaaskii ayaa dalxiis u tagay xero xayawaanka lagu xanaaneeyo. Waxay arkeen daanyeer lab oo si jacayl ku dheehan yahay ula ciyaaraya dhadigiisa. Xaaskii ayaa ninkeeda ku tiri, alla maxay romantic yihiin lamaanahan. Ninkii ayaa ku yiri xaaskiisa, dhagax ku tuur goosha, kadib fiiri waxa uu sameeyo libaaxu. Markay dhagixii ku tuurtay ayuu soo booday isagoo qaylinaya, waa libaaxii, si uu u difaaco gooshiisa. Kadib wax yar kadib, iyagoo la dhex maraya beerta, waxay arkeen daanyeeradii oo mar kale ciyaaraya. Kadib ayuu ku yiri, daanyeerkana ku samee sidii aad ku samaysay libaaxa oo kale, tusaale dhagax soo qaado oo ku tuur. Taasi waxay keentay daanyeerkii labka ahaa inuu boodo oo cararo kana tagay lamaantiisii si uu naftiisa u badbaadsado. Ninkii ayaa xaaskiisa ku yiri, aragtidu yaanay ku khiyaamin. Romantiga qaarkii khiyaana ku duugan oo waa qalbi maran. Waxaa jira kuwo badan kuwaas ka soo horjeeda, kuwaas oo aan waxba muujisanayn, laakiin qalbigoodu uu ka buuxo daacadnimo iyo jacayl. Arrinta murugada leh ayaa ah in maalmahan aan yeelanay daanyeer aad u badan iyo libaax aad u yar. Sheekadan aadka u qiimaha badan ee leh xiisaha goonida waxaan ka soo xigtay ama ila wadaagay saaxiibkay mentor Koronto Ali Aadam. Waa mar kale iyo barnaamijyadeeni taxanaha. Tan iyo intaynu dib u kulmi doono toddobaadyada soo aadan, waxaan igaga tegayaa sidaa iyo nabadiino.